kadib dagaalkii Uxud iyo dhibaatadii ka soo gaartay muslimiinta. Gaaladii mushrikiinta ahayd waxay damceen inay ka takhalusaan muslimiinta oo ay qabsadaan magaalada Madiina. Reer baadiyihii mushrikiinta ahna waxay go'aansadeen inay garab istaagaan Quraysh si ay u difaacaan diintooda baadilka ah ayna u hantiyaan magaalada Nebiga Suuban sallallahu calayhi wasallam. Dadkii arrinkaas bilaabayna waxaa ka mid ahaa nin lagu magacaabi jiray Khaalid al-Hudali. Wuxuu bilaabay inuu diyaarsado ciidan si uu duulaan ugu qaado magaalada Madiina. Nebiga sallallahu calayhi wasallam markuu ogaaday arrinka Khaalid ayuu wuxuu u diray saxaabi ka mid ah saxaabadiisa, kaas oo lagu magacaabo Cabdullaahi bin Unays radiyallahu canhu si uu uga takhaluso Khaalid al-Hudali. Cabdullaahi bin Unays radiyallahu canhu Nebiga ayuu ku yidhi, rasuulkii Allah ma aqaano ninka ee ii tilmaan. Nebigana wuxuu siiyey tilmaan walba uu ku aqoonsan karo Khaalid. Cabdullaahi oo ka sheekeynayo arrinka ayaa dhahay, waan soo baxay, seefteydana waan soo qaatay, waxaan imid halkii uu joogay Khaalid oo lagu magacaabo Curanah. Xilli casr ah ayaan arkay isagoo leh tilmaantii uu ku tilmaamay Nebiga. Dhankiisa ayaan soo aadi rabay, laakiinse waxaan ka baqay inaan agtiisa ku daaho oo iga mashquuliyo salaada. Markii aan tukaday ayaan u tagay, wuxuuna yidhi, waa kuma ninkan? Waxaan dhahay, nin Carbeed oo maqlay inaad duulaan ku tahay Muxamed iyo ciidankiisa, sidaas ayaana kuugu imid. Wuxuu yidhi Khaalid, haa, arrinkaas ayaan wadaa. Kadib Cabdullaahi iyo Khaalid ayaa si wadajir u sheekaystay. Khaalidna wuxuu la yaabay sheekada Cabdullaahi. Kadib Cabdullaahi bin Unays radiyallahu canhu ayaa dhahay, soo la yaab ma ahan diinta cusub uu Muxamed keenay, wuxuu ku ciyaaray caqliyada aabbayaasheen. Khaalid al-Hudali ayaa dhahay, Muxamed lama uusan kulmin qof anigoo kale ah. Markii ay sheekada dhammaysteen, Khaalidna uu teendhadiisa galay, ciidankiina ay kala aadeen teendhooyinkooda, ayuu Khaalid Cabdullaahi ku yidhi, soo dhowow walaalka Carbeedow. Si wadajir ayay u fadhiisteen, waxayna isla cabeen caano. Markii uu jawiga degay, dadkiina ay kala seexdeen, ayuu Cabdullaahi fursad ku helay Khaalid. Fursaddiisana si wanaagsan ayuu uga faa'iidaystay. Halkaas ayuu ku dilay Khaalid al-Hudali. Cabdullaahi bin Unays radiyallahu canhu wuxuu u soo laabtay magaalada Madiina, wuxuuna aaday masaajidka Nebiga si uu ula kulmo Nebiga sallallahu calayhi wasallam. Nebiga sallallahu calayhi wasallam markuu arkay Cabdullaahi aad ayuu u farxay. Cabdullaahi ayaa dhahay, waan soo dilay rasuulkii Allow. Nebigana wuxuu yidhi, run ayaa sheegtay. Kadib Nebiga sallallahu calayhi wasallam ayaa Cabdullaahi gurigiisa la galay. Wuxuu siiyey ushiisa, wuxuuna ku yidhi, Cabdullaahiyow hayso tan. Cabdullaahi bin Unays markii uu soo baxay, dadkii ayaa weydiiyey, ushu waxay tahay. Wuxuu yidhi, Nebiga i siiyey, wuxuuna i amray inaan haysto. Waxay dhaheen dadkii, oo ma weydiisid Nebiga? Kadib Nebiga ayuu u laabtay, wuxuuna ku yidhi, rasuulkii Allah maxaa ii siisay tan? Nebiga ayaa dhahay, waa calaamad aan qiyaamaha kugu aqoonsan doono. Cabdullaahina seeftiisa ayuu ku xirtay, markii uu dhintayna ushiisa waa lala aasay.